tusaale ahaan shaqadan oo kale luqadda ingiriiska kaliya lagaa rabaa no degree no certificate or diploma wax lagaga baahan yahay haba yaraatee ma jirto khibradna waxay ku leeyihiin innaga ayaa ku tababari doono marka haddaa xataa khibrad lahayn. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, kuna soo dhawaada janalkeena yaasiin british. maanta waxaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa aan isla eegi doonaa fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka Canada oo aan ognahay inuu yahay mid ka mid ah dalalka ugu fursadaha fiican caalamka. ayaan maanta isla eegaynaa fursadihiisa shaqada iyo sidee suurtagal ku tahay iyo xareysashadeedaba intaba. sidoo kale maanta waxaan barnaamijkeena kula wadaagayaa shaqadan inay codsan karaan kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaran intaba. sidoo kale waxaa jira qaladaad ay khatar tahay inaad ku dhacdo xilligaad waxaan xareysanayso, waxaana isla eegi doonaa sidaad uga digtoonaan karto in qalad noocaas oo kale ah markaasi aad gasho islamarkaana wax walbo aad xareysatay aaweydo. balse ka hor daawade intaan gudagelin barnaamijka waxaan si naxariis ku dheehanta kaaga codsanayaa inaad channelka soo subscribe garayso, muuqaalkana marka ugu horeysaba alaagta saarto. soona dhawaada mar kale. hore waxaan uga soo hadalnay Australia iyo UK. maanta barnaamijkeenu waxa uu daaran yahay dalka iyo Canada runtii wuxuu ka mid yahay wadamada markaasi haysta fursadaha shaqo kuwooda ugu badan, islamarkaana dadku ay qaabab kala duwan uga faa'iidaystaan sida uga shaqaysan lahaayeen. si lamida dalkan waxa uu bixiyaa waxbarasho lacag la'aan ah ama wax loo yaqaano scholarship. laakiin maanta barnaamijkeena scholarship ma aha, ee barnaamijkeena waxay tahay sidee baad shaqooyinka Canada uga faa'iidaysan kartaa meel walba dunida ka joogto adigoo xareysanaya islamarkaana nasiibkaaga eegaya. waayahay, dhowr qaybood oo kala duwan ayaa idiin soo xulay, waxaana dul mareynaa qayb walba iyo sidoo kale waxyaabaha qofka looga baahan yahay iyo inay yihiin waxyaabaha kasoo bixi kartiin iyo in kale. inta badan waxyaabahan jeclana idin tusiyo waxa weeye waxyaabo idinku aad kasoo bixi kartaan oo iska fudud iyo kuwa qaarkood laga yaabo inay shahaado u baahan yihiin sida kan oo kale. maanta sababta ugu soo dalkan waxay tahay civil engineer. dad badan oo waxaa jiro Soomaaliya oo xifradan bartay islamarkaana aan isleeyahay haddii ay shahaado haystaan shaqadan aad bay u anfici lahayd. inkastoo lagu xirayo college ama experience si lamida ugu yaraan inay 1 sano ama 2 sano kusoo shaqeeyeen, haddana waxaan aaminsanahay inay jiraan dad Soomaaliyeed oo shaqadan kasoo bixi kara islamarkaana qaban kara. markii laga soo tago qaybtaas, qaybta labaad ee barnaamijkeena waxa uu isna yahay qofka markaasi caawiyaha jikada. dabcan cunto karinta inteena badan waa wada naqaanaa, laakiin cunto karinta ay xaggan ka doonayaan Canada waa mid looga baahan yahay qofka ugu yaraan inuu hore ugu soo shaqeeyey oo xifradeeda u leeyahay. si lamida ugu yaraan waa inaad 1 ama 2 sannadood wax ku dhow oo xifrad ah aad leedahay ama khibrad aan iraahday aad leedahay. ugu yaraan waa inaad haysataa dibloma luqadda ingiriiskana waa inaad taqaan. tan kale saddexaad ayadana waxay tahay cook oo ah cunto kariye. shaqadan ayada ah wax degree ah lagama rabo, wax oo diblomana haba sheegin oo lagama rabo, laakiin luqadda ingiriiska aad bay muhiim ugu tahay shaqadan taqaanid. si lamid ah waa inaad haysataa khibrad ugu yaraan 2 ilaa 3 sannadood oo cunto karisa, horena uga soo shaqeyso ugu yaraan restaurant ama maqaaxi, hadba qofka siduu u yaqaan. tan ugu dambeyso oo ah mid markaasi iyadana aan wax degree la iskaga baahnayn, luqadda ingiriiska kaliya lagaaga baahan yahay, waxay tahay dadka soo gura ama soo saara qudaarta islamarkaana geedaha kasoo gura, siina qaybiya, kana hadhowna kala gura oo meelaha kala duwan u kala qaybiya. marka waa usoo noqon doonaa shaqooyinkan waxa ay kala yihiin iyo sida loo kala xareysanayo, balse marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan ku hormaro tan markaasi civil engineerka. shaqadan saa u jeedaan waa civil engineer. dad badanoo waxaa jiro Soomaaliya oo dalka dibadiisa xataa qaarkood wax kusoo bartay, laakiin nasiib xumo wixii ay soo barteen aana ku shaqeyn waqti xaadirkan, islamarkaana aan fursadii u helin ay ku shaqaystaan. shaqadan waxaa la soo geliyey 9 bisha oo ah dabcan marka muuqaalkan idin soo gaarayo oo maanta ah. waxaa laga yaabaa sidoo kale muuqaalkan inuu kusoo gaaro xiliyo kala duwan, laakiin muuqaalkan waxaan duubayaa maanta taariikhda ku beegan tahay 9 bisha May sanadda 2023. waayahay, shaqadan dabcan civil engineer waa mid ka mid ah shaqooyinka ay ugu badan tahay in markaasi qofku mushaar badan uu ku qaato. wiigii waxaa shaqeynaysaa 30 ilaa 40 saacadood wiig walba. silmada shaqadan waa mid joogta oo permanent ah, waana full time.
qofka marka maxaa looga baahan yahay? Overview-geedu waxay tahay kow waxa ugu horeysa lagaa baahan yahay inay tahay luqadda Englishka. Si la mid ah, ugu yaraan waa inaad haysataa waxbarasho college ah ama wuxuu dhigmo oo khibrad ah. Sidoo kale, ugu yaraan waa inaad 1 sano ama 2 sano inta u dhaxaysa aad hore ugu soo shaqaysay. Outdoor-ka loo baahan yahay waxyaabaha markayna ka shaqaysid, isla mid marka waxyaabahan xaggan ku qoran oo waxyaabaha taskiga ama responsibility-ga qofka hadhow looga baahan yahay inuu kasoo bixi karo. Kule dadka wax bartay way la fahmi karaan waxa aanu ka hadlayo. Waayahay, dadka la doonaya waxay u dhexeeyaan 1 ilaa 4 qof. Shaqadan ayay 4 qofood ayaa ka bannaan. Waa fursadaha shaqo ee hadda ka bannaan waqti xaadirkan. Haddii aad xasuusataan, hadaayatal waxaa idiin sheegay inay jiri karaan qaladaad xilliga aad xariisanayso barnaamijkan shaqooyinka kala duwan ee dalka Canada. Haddaba waxaad isweydiinaysaa qaladaadkaas aan bilowga hore soo sheegay maxay noqon karaan. Haddaba xaggan si fiican ila eeg daawade. Shaqooyinkan inta badan ee Job Bank Canada ay soo bandhigaan waa la kala saaray. Qaar waxay yihiin qaar u furan dadka adduunka joogo dhan, qaarna waxay yihiin qaar aan u furneen una furan dadka Canada joogo kaliya. Sida tusaale ahaan shaqadan oo kale. Shaqadan oo kale oo fruitiga laga shaqeynayo ama qudaarta laga shaqeynayo, soo gurideeda iyo jarjarideeda, dhaqideeda inaad kala habayso. Shaqadan waxay u furan tahay kaliya dadka joogo dalka Canada. Marka shaqo walba markaa xariisanayso, qaybtan hoose iska eeg oo ku qoran tahay who can apply this job. Waxa lagu dhahay shaqadan waxay u furan tahay dadka Canadian citizen-ka ah, isla markaana haysta degenaanshaha rasmiga ah ama kuwa ku meel gaarka haysta ama kuwa kale haysta fiisooyinka shaqada dalka Canada. Haddii aadan ruqsad u haysan inaad ka shaqeyso dalka Canada, ha codsan. Shaqaalaha ama dadka shaqa bixiyaha ah kuma soo jawaabi doonaan application-kaagana ma eegi doonaan haddii aad sidaas samaysid. Taa waad la garanaa umaleynaa. Marka mar walbo oo aad Job Bank soo gashid, shaqada qaybta ugu hoose description-ka iska fiiri inay tahay shaqo guud ahaan Canada oo dhan loogu talagalay miya mise waa shaqo u furan adduunka oo dhan qof kasta meesha uu joogo. Marka intaas ayaa muhiim ah inaad ogaataan. Waayahay, shaqadan hore ku noqonaynaa marka civil engineer. Dabcan saa u jeedid xaggan waxaa ku qoran in shaqadan ay u furan tahay dadka Canadian citizen-ka, kuwa haysta degenaanshaha rasmiga, kuwa ku meel gaarka haysta, iyo sidoo kale dhammaan Canadian-ka, iyo xitaa kuwa aan haysan Canadian work permit-ka. Macnaheedu waxay tahay xataa haddii aadan Canada deganayn, in shaqadan weli aad heli kartid, isla markaana haddaa codsatid oo ay ku aqbalaan, isla markaana shaqa bixiyuhu uu ka helo CV-gaaga iyo aqoontaada, in fursad ay kugu jirto inay ku qaataan. Shaqadan waxaa xariisan kartaa ilaa iyo bisha 6aad 8deeda sanada 2023. Wixii ka dambeeya haddaa xariisato wax faa'iidaha kama helaysid, waayo xilligan ay ku eg tahay xilliga ugu dambeeyo ee la codsan karo sida taariikhda ka arkaysid. Waayahay, taa waas la garanay. Tan labaad u soo gudbaynaa. Hadda waxaan soo sheegay in shaqadan qofka caawiyaha jikada, dabcan maqaaxiyo waaweyn iyo waxaa jira hodheelo waaweyn oo laga shaqeeyo kuwaasoo cuntada sameeya. Hadday ahaan lahayd maqaaxi si gaar meel ugu taal iyo hadday ahaan lahayd maqaaxiyada hoteeladu ay leeyihiin. Waxyaabaha meeshan ku qoran aa u jeedid dhammaantood waa waxa la iskaga baahan yahay. Waa ku tegi doonaa shaqooyinka waxba la iskaga baahneen, laakiin waxaa ku hormaraya kuwa job experience u baahan ama khibradda u baahan. Shaqadan waxaa lagaaga baahan yahay ugu yaraan inaad 1 sano ama 2 sano khibrad aad leedahay. Ugu yaraana waa inaad haysataa shahaado ama diblooma ama wax la mid ah. Marka xataa haddaad shahaado haysanin laakiin aad leedahay khibraddan, still chance-kan waa kuu furan yahay. Laakiin almuhiim waxay tahay in luqadda Englishka aad u taqaanin. Shaqadan mushaarkeedu waxa uu u dhexeeyaa 18 ilaa $35 saacadii, waxaana lagaa rabaa in 40 saacadood weekii aad ka shaqeyn kartid. Shaqadan waa shaqo joogto ah, waana full time, waxaana shaqeyn kartaa maalin, habeen iyo si la mid ah xilliyada weekendiga, taasoo markaasi ay kala duwan yahay xilliyadeeda. Waxaana shaqadan bilaabi kartaa sida ugu dhaqsiyaha badan, sida aad meesha ka arkaysid ba inta badan. Waayahay, taa waa taa. Waxaan usii gudbayaa tan kale marka oo iyadoo ahayd cook. Laftirkeeda hore u soo sharaxay degree baa lagaa rabaa ama certificate ama khibrad 2 sano ah. Marka dad badan waxaa jira YouTube leh oo cunto karisku ku soo gudbiya. Dadkaasoo kale
waxaa laga yaabaa inay shaqadan anfacayso waayo iyagu waxay haystaan khibrad cunto karis oo ku filan. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in luqadda Ingiriiska dadkaasi ay ku hadli karaan islamarkaana yaqaanaan. Shaqadan $3,800 weeye bishii, 40 saacadood ayaa lagaa rabaa week inaad shaqayn kartid, waana shaqo joogto ah oo full time ah. Waayahay, waxaan isku daynaa marka inaan waqtiga soo koobo, ma rabo inay waqti badan qaadato barnaamijkan, sidaas darteed baan waxaan rabaa inaan tan ugu dambeeyo tusiyo qaabka loo xareynayo. Tan ugu dambeysa marka waa tanaan soo eegaynaa. Haddayta ka soo hadla tan waxa weeye fruitka iyo qudaarta sida loo soo qaado oo geedaha looga soo jaro, saacaddii waa $15 iyo xoogaa, 40 saacadood ilaa 80 saacadood baa week shaqaynaysaa. tanna waxa weeye essential employment full time, yacni seasonka, yacni season waxay tahay xilliyada beeruhu soo go'aan oo meelaha beeraha ay diyaarka yihiin keliya loo baahan yahay, taasoo meesha ka saaraysa intaa shaqo joogta ah. Yeelkadeeda shaqooyinka inta badan fudud waa kuwa waddanka gudihiisa keliya laga codsan karo. Tusaale ahaan shaqadan oo kale luqadda Ingiriiska keliya laga rabaa, no degree, no certificate or diploma, wax lagaga baahan yahay haba yaraatee ma jirto. Khibradna waxay ku leeyihiin innaga ayaa ku tababari doono, marka haddaa xataa khibrad lahayn ha ka welwelin. Waayahay, worksite environment, bannaanka ka shaqayn kartaa, meel oo qabow ka shaqayn kartaa oo dust leh ama bus leh, meel kulul, meel wasaq oo qoyan oo damb ah. Intaas marka waxaa la rabaa inaad ka shaqayn kartid. Almuhiim intaasaa ugu muhiimsan inaad ka shaqayn kartid waxyaabahaas hadda ay soo sheegayaan. Yacni qofka waxaa la eegayaa meelaha uu ka shaqayn karo iyo meelaha aana ka shaqayn karin. Marka laakiin nasiib xumadu waxay ka taagan tahay shaqadan oo kale oo ah inaan waxba lagaaga baahnayn, wax aqoona, wax khibrada ah, inaadan ka xariirsan karin bannaanka Canada. Ma arkaysaa? Waxaa ku qoran shaqadan haddii aad tahay waxaa xariirsan kartaa ama aad soo dalban kartaa keliya haddii aad tahay Canadian citizen ama qof haysta degenaanshaha rasmiga ee Canada, ama qofka haysta midka ku meel gaarka, ama qof xitaa haysta fiisada shaqada dabcan Canada permitka waxa loo yaqaano Canadian work permit. Haddii marka aadan intaas midkood aadan haysanin ma xariirsan kartid. haddii xariisatana shaqa bixiyuhu kuuma soo jawaabi doono applicationkaaga. Taa isla fahnay. Waayahay, marka waxaan xareynaynaa kan ay u furan tahay adduunka oo dhan sidii kan oo kale. Markaysaa kan maadaama adduunka oo dhan ay u furan tahay, kanaan qaadanaynaa, kan ayaan isku dayaynaa in ay tuso qaabka loo xareynayo. Waayahay, intaana marka xareynta u gudagelin waxaa jira saaxiibo badan oo dhowr mar soo weydiiyey waa maxay CV. Waa maxay CV? CV waa warqad lagu qoro macluumaadka qofka shaqa doonaha ama qofka shaqada doonaya ee shaqada raadinaya. Waa warqad uu ku qoro macluumaadkiisa iyo sidoo kale qofka uu yahay, meesha uu degan yahay, da'diisa, iskuulka wax ku soo bartay iyo shahaadooyinka uu haysto. kaas ayaa la dhahaa CV. Marka waxaan u malaynayaa haddeer wixii ka dambeeya inaan isla fahnay waxa ay CV tahay. sida haddaa ka soo hadlaba kitchen, qofkan looga baahan yahay inuu jikada ka caawiyo dadka kale. Kaliya maaha inaad cunto karinaysid, laakiin sidoo kale cleaning oo kale ka caawin kartaa, qaybta nadaafadda, dabcan qaybta hilibka inaad u jarjartid oo kale, waxyaabaha kale ee korontooyin ku saabsan inaa wixii kale nadiifisid. Yacni waxyaabo badan oo ku saabsan cunto karis iyo jikada. xataa waxay ku leeyihiin ina xataa qudaarta usii jarjartid oo kale, meesha usii diyaarisid oo kale, alaabta sii dhaqdid, alaab nadiifa ka dhigtid, jikada waxyaabaha qashinka kale aruurisid, yacni meel nadaafsan inaad ka dhigtid. intaasaa ugu muhiima. marka wax dhib badan uma arka inay tahay, laakiin inkasta ay leeyihiin khibradda la iskaga baahan yahay, way jiraan dad cunto karinta ku dheereeyo khibradna u leh. marka waxaan is leeyahay kuwaasna way ka faa'iidaysan karaan. lacagteeduna waa intaas oo $18 weeye saacaddii. wiigina waxaa laga rabaa inaad shaqaysa inta u dhaxaysa 35 ilaa 40 saacadood. marka tan isla fiirinaynaa sida loo xareynayo. marka mar walbo xasuusnaada meeshaan aan qalinka ku hayo inaad akhrisaan. shaqadan waxaa la xareysan karaa ilaa 23 bishan, marka wax badan kamaba harinba. marka isku daya isla maantaba inaad gashaan, maadaama ay iska tahay shaqo fudud oo qof kasta xareysan karo, khaasatan dadka yaqaan cunto kariska khibradna u leh. waayahay, apply baan dhahaynaa. waayahay,
meeshaan wuxuu kaaga baahan yahay email. So waxaan dhahaynaa sign up baan dhahaynaa. ileen hore haddaadan ugu lahayn account meeshan waa inaad sign up dhahdaa. marka xaggan timaadid marka waxaan dhahaynaa marka account iska caadi aan samaysanaynaa. standard account baa dhahaysaa. sidaanu kusoo baxay waa marka ugu horeysa. dabcan hal mar kaliya lagaaga baahan yahay. haddaa hal mar samaysid mar labaad uma baahan. marka xaggan waxaa ku qoraysaa emailkaaga, passwordkaaga, kadibna luuqadda aad ku hadashid baa xaggan ku qoraysaa. passwordkaaga markaa ku celinaysaa, confirm baa dhahaysaa, kadibna continue baa dhahaysaa. masla fahanay inta markaa dhahdo wuxuu ku geynayaa qaybtan confirmationka number 2 ah. confirmation code buu wuxuu kugu soo dirayaa emailkaaga tegaysaa, confirmation code ka soo qaadanaysaa, waa gelinaysaa. kadib su'aal wuxuu ku weydiinayaa security question ah. su'aal marka jawaabteed ah xasuusintaa ka dhiganaysaa. saasoo kale kana ugu dambeeya kor kuu soo dirayaa, waa qaadanaysaa. kadibna wuxuu ku dhahayaa CV-gaaga soo geli meeshaas. kadib CV-gaaga gelinaysaa, kadibna shaqada aad rabto ayaa codsanaysaa. waxaan u maleynayaa hadda inaad sawir guud ka haysataan qaabka loo xareynayo shaqooyinka dalka Canada. saa hore kugu sheegana mar walbo ka digtoonaada inaa xaggan fiiri weydaan. xaggan mar walbo isha ku haya insha Allah, oo iska fiiriya oo isku daya inaad shaqadan hubisaan. mar haddii calaamadan casaanka saaran tahay, waa Canada kaliya dadka jooga xareysan karaan shaqadan, oo adduunka kale shaqo kuma laha, umana furna. laakiin haddaa aragtid inay sidaan oo kale tahay, calaamadan cagaarka ay saaran tahay, xaggana ay caadi iska tahay plain, macnaheedu waxay tahay meel kasta adduunka aad joogtid shaqadan waa xareysan kartaa. su'aalo marka waxaa jira dadka ay soo weydiiyaan. qaar waxaa jira soo weydiiyaan baasaboor noocee la iskaga baahan yahay. baasaboor walbo intaan ka ahayn kaarka qaxootiga, haddiiba baasaboor waddan aa ka haysato nuucu doono ha ahaadee, jaaniskan waa kuu furan yahay. marka hadhow su-aashan qofna ha sii weydiinin, adigana hadda sii ogow. cid kasta ayuu jaaniskan u furan yahay, waa qof walba iyo nasiibkiisa. su'aal kaloo iyadana waxaa jirta dadku isweydiiyaan oo ah meeqay qaadanaysaa inay iisoo jawaabaan. shaqa bixiyuhu isagaa iskale go-aanka qofka ugu soo jawaabaya, laakiin shaqooyinka saa ka aragnaba waxaa jira xilliga ugu dambeeyo ee la codsan karo, taasoo ah shaqo walbo inay leedahay waqti u gaar. tusaale ahaan tan oo kale waxay ku eg tahay 8 bisha 6 sanada 2023. marka wixii ka dambeeya unbay shaqa bixiyaashu go-aan qaadanayaan, isla markaana ay dadka markaasi siinayaan go-aankooda ugu dambeeya, cidda ay shaqaaleysiinayaan iyo cidda kale. marka go-aanka shaqa siinta shaqa bixiyaha ayaa iskale, laakiin wixii fursada u jirto waa idinla wadaagay. waxaan idin rajeynayaa inaad guuleysataan. mar walbo aad tan sameynaysana niyadaada ku xir in haddii ilaahay ku qoro aad helaysid. niyadaada waxaa ka dhigtaa mid degan. waxyaabahan aan kuu sheegana si fiican u raac si aad wax walba u fahanto. aad baa idiin salaamayaa. mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin xasuusinaya channelka haddaad subscribe soo dhigna soo raacdo, muuqaalkana aad sii shargarayso, laagtana barnaamijka socodsiisaa. aad baa idiin salaamayaa. sidaas iyo nabadgelyo, nasiib wacan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.